هويو حقيقي حكمتها إلهي قرآن كي حديثه محي كحسين هويو. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنيقو أهلي بان محمود حسن جنال كاديغا داوان إيسان والي لوف جنال وحايدين سيدا قصة عجيبة قصة داسي أو كسابسان خويا معان الله خويا معان جنة الفردوس كورابي جاهاga hooyo naftayda u jeelane oo aan jibsanayne ifka nabad ku joogo cadowgaaga haw jabi hooyo cadowgaaga haw jabi qisadani waxay ku bilaabanaysaa sidata sawirkan idiin muuqda waxaa qaaday nin ka tirsan ciidanka booliska Sacuudi Carabiya wuxuuna yiri waxaan la yaabay qof dumar ah oo da'weyn oo gaari xaajiyada xagga dambe saaran oo aad u daalan oo diifi ka muuqato kadibna xagga hore baan eegay waxa gaariga darawalka ah nin dhalinyaro ah kursiga darawalka ku xigana waxa saaran gabar dhalinyarad ah kuraasta dambana waxa saaran caruur yar ninkii booliska ahaa baa dabagal ku sameeyay waxa uu markii dambe ogaaday islaanta gaariga xagga dambe uu saaray darawalka inay tahay hooyadii kuwa gudaha gaariga ku jirana ay yihiin xaaskiisa iyo caruurtiisa sawirkan ayaa aad ugu faafay baraha bulshada falcelin murugo badan ayaa laga bixiyay hooyadii 9 bilood caloosha ku soo waday dhashay barbaarisay korisay wax bartay ayuu sidaan uga dhigay abaalkeeda dhalinyaro badan ayaan arkay hooyadood guri buush ama marooyin laga sameeyay degan misana yar oo ninaca iyo shukulaatada iyo oomada ay ku iibiso wadada laamiga horteeda oo gabadhii ay bartaanba habeenkii u kaxeeya outindina ama casho banaanka kadibna iPhone nooca ugu dambeeyay u iibiya hooyadiina kama warhaayo wallahi billahi ruuxi aan waalidkii ka ducaysan siiba hooyo inuusan jannada galaynin ama carfin doonin nin aan hooyadii jeclayn ka sheekeynaynin daneynaynin yuusan mustaqbalka gelin ogsoonow caas waalideen yaal uun ayaad u dhalaysaa ama ka dhalaysaa waa kuwii beri ku dili lahaa ileen waa cuqubo 10 fac ayay soconaysaa muxuu tari wiil ama gabar caasi waalideen ah waan ooyay wallaahi markaan arkay sawirkan si daran ayaan uga murgay hooyo in sidaan loola dhaqmo wallaahi ma istaahisho gacalow raxmaanow gabdha badan oo baariyaala ayaan ku ducaystay wiil waa xaasid marna waa halyeey allow caruurta baari nooga dhig waxaa tahay qaybta ugu qurxoon noloshayda hooyo naftayda iyo caruurtayda iyo maalkayga iyo waxa dunida saaran yaala adiga ayaan ka jeclahay hooyo haddii sujuuda ilaah ka sokow banaanaan lahayd in qof loo sujuudo adiga ayaan kuu sujuudi lahaay hooyo macaan waan ku jeclahay jacayl aan dhammaad lahayn waan ku jeclahay jacayl aan isdhimayn waan ku jeclahay hooyo kii ugu sharafta badnaa jacaylka waan ku jeclahay jacayl aan la mid ahayn jacaylada kala duwan kana sareeya kana awood badan hooyoy hantida igu qaalisan ee dunida ii yaala waa hooyaday naftayda iyo caruurtayda iyo wax walba aan haysto adiga ayaan kaa jeclahay dunida wax yaalana kama xasdo الله عمري ذا إداري هو يدي معان إيه هو يوين كمسلمين تا دمان ربي نار تجهنم كحوري جحيمو شيسو فردوسو جنادي كنولو جنادي كنولو جنادي كنولو fadlan la wadaag asxaabtaada qisadan ku saabsan hooyo macaan si ay dhalinyaro badan u joojiyaan qaabdarada ay waalidka kula dhaqmayaan siiba hooyo macaan share oo rukumo subscribe saar channelka si aad ula socoto qisooyin
jacayl ama wacyigelin ku saabsan dhanka waalidka waxyaabo fara badan oo ku xiiso geliya insha Allah mahadsanid